فيلسوف Mareykan ayaa yiri haddii aan ka faa'iideysan lahay hal daqiiqo oo waqtiga ka mid ah run ahaantii waxa aan ku dadaalayay iyo waxa aan sameynayay horumar aad iyo aad u balaaran ayaan ka gaari lahay balse ma aanan ka faa'iideysanin waqtigeyga haddaba si tartiib ah oo degan ka bax meesha aad ku jirto tag meel degan oo cidlo ah kadibna waa inaad isweydiisaa su'aalahan gaarka ah su'aasha koowaad maxay tahay waxaad u nooshahay muxuu yahay hadafkaagu maxaad doonaysaa inaad dunidan horumar aad ka gaarto labo maxay tahay waxa aad mar walba jeceshahay inaad sameyso waayo waxa mar walba aad jeceshahay inaad sameyso ayaa ah waxa mustaqbalkaaga uu noqon doono isku day inaad soo saarto awoodahaada gaarka ku ah qof walba Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay awood asiga gaar u ah haddaba waxaad ogaataa adiga inaad leedahay awood gaar ku ah awooddaasi aysan cidna soo bandhigi karin awooddaasi waa inaad soo bandhigtaa soona muujisaa